حسين عرب عيسى وحي هالي 740 عد محمد علي حيد وحي هالي 2 عد كرسيغا waxaa ku guuleystay حسين عرب عيسى saasuna antax ku yahay ciidamada Soomaaliyeed siiba booliiska iyo amisom booliiskeeda oo runtii suuro galiyay in arrintan si qurux badan oo sharaf leh oo amnigeedana aan cad ahayn u dhacdo ilaa ay maalintii processku noo bilaabmay diiwaan gelinta ergada ilaa ay haddaba waxaad moodaa inay aad juhdi weyn u saareen si lama filaana marka waan u mahad celinaynaa runtii la'aantood ma dhici lahayn ergada salaadiinta waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin waxaa xumaatay 6 cod waxayna kala heleen nambarada soo socda Saciid Maxamed Maxamuud wuxuu ku guuleystay 43 cod Khadra Saciid wadanka waxaad moodaa inaad tallaabadii dimuqraadiyadda aan hore u qaadnay haddaan ka hadalno dadyooga soo fududeeyay doorashadan guddiga doorashooyinka qaran waxaad moodaa inay shaqo xoogan oo fiican oo hufan inay qabteen meeshii la oran jiray Soomaali wax ma qabsan karto way ka tagtay maanta Soomaali iyada is dooranaysa iyaga tolkeeda iskaga dhex dooranaysa shacbiga dhaxgalaysa amniga ciidanka booliska qaranka haya gaadiidka booliska dhexdiisa ayaan ku dooranayna doorashooyinka hore Kenya iyo Djibouti ay ahaan jirtay maanta waxaan ku faraxsan inaan gaadiidka booliska dhexdiisa ay 275 xildhibaan lagu doortay ay maartay taariikh tahay qaranka u adeegi doono marka taas runtii aan ugu muhiimsan Soomaali oo dhanna waxa runtii maanta aan dardaarayna looga baahan yahay in gacmaha la isqabsado sidii qarankan mushkiladaha inta badan haystay looga saari lahaa xoog cusub baa loo baahan yahay marka waxaan aaminsanahay in xoogii cusba ay maanta rag badan oo cusub baarlamaanka soo galeen aan qayb ka nahay jawiga maanta doorashadu noogu dhacday jawi aad u qurux badan aad u degan aan buuq iyo wax sawaxana lahayn cadaalad ah wax qashqashaadi wax dhibaato kamaysan dhicin habkii loo baahnaa iyo sidii loogu talagalay ayana noogu soo gabagabowday oo ina noogu dhacday because of this deployment and this arrangement and planning we have not experienced any security incident or any threat attacking our election center, and we have done this. This has gone on well, and even today it has gone on peacefully.